daawanaysaana waa Bashi FX sidoo kale asxaabta nagala socota dhankaas iyo Facebook page-keena ee Bashi FX Cryptofolio mar labaad soo dhawaada waxaan rabaa inaan halkan waxa weeye ku sharxo qaabka Binance waxa weeye coinska cryptocurrency loo iibsado dadka waxa weeye qofkii raba inuu cryptocurrency maalgashado waxa jira waxa weeye dhowr meelood oo laga maalgashado blockchains midka ugu fiican oo Soomaalidu badan isticmaasho oo la dhihi karo waxa weeye midka ugu fudud waxa weeye Binance sidoo kale waxa jira Coinbase labadana waxa weeye haddii aad rahayn description-ka linkooda waa soo dhigaya waxaan ka hadlaynaa qaabka loo iibsado cryptocurrency coinska waxa weeye sida Bitcoin Ethereum waxa weeye ma garanaysaa way badan yihiin coins soo maalgashan lahayd oo lacagtaada u gelin lahayd anagoo isticmaalayna waxa weeye Binance si loo samaysto haddii aadan waxa weeye la socon aadna xiiseynaysid cryptocurrency waxa weeye inaad maalgashatid waxa u baahan tahay inaad soo daawatid fiidiyoyaasha hore aan kaga soo hadalnay qaabka loo samaysto waxa weeye Binance loona verify gareeyo markuu verified ku noqdo waxa u baahan tahay sidoo kale inaad waxa weeye deposit ku sameyn kadib ama buy crypto aad sameyn kadib waxa weeye Binance taasna waan ka soo hadalnay description-kana waan soo dhigi doonaa insha Allah haddii la yiraahdo inta markaan soo gudbo halkan waxaan rabaa inaan ku sharxo qaabka waxa weeye loo iibsado crypto coin loo iibsado crypto coin ka saa u iibsatid waxa u baahan tahay shaashadan halkan markaad joogtid kaliya Binance-gaaga haddii aad isticmaalaysid waxa weeye laptop iyo haddii mobile aad isticmaalaysid waxa weeye waa same waa isku mid haddii mobile aad isticmaalaysid waxa weeye trades ka tagaysaa sidoo kale haddii aad isticmaalaysid laptopna waxa weeye trades ka tagaysaa soo hadda laptop baan isticmaalayaa laakiin mobile-ka laptop waa isku mid marka waxa weeye markaad iibsanaysid ama coin ay iibsanaysid waxa u baahan tahay waxa jira meelaha xaraan ah wax laga iibsan haddaad coin ama la gashanaysid waxa u baahan tahay trade-ka markaad timaadid inaad tagtid meesha ay ku qoran tahay spot meesha meelaha ahayn haddaad wax ka iibsatid waxa weeye waxay u baahan tahay waxa weeye meesha waxa weeye xaraanta way ku baahan tahay meelaha xaraanta futures meel dhaca jira taasoo kale wax ka iibsanina tokens-kana kale meesha ay ku qoran tahay derivatives-ka meesha ay ku qoran tahay laftigeeda waxa weeye waa meelaha waxa weeye xaraanta way kamid tahay oo halkan waxa ku jira ma garanaysaa waxyaalo tokens ku jira marka waxa u baahan tahay kaliya trade-ka meesha trade inta timaadid inaad tagtid meesha ay ku qoran tahay spot kadib spot-ka markaad timaadid oo spot-ka uu ku keeno meeshaan ku keenaya iyo lacagihii waxa weeye cryptocurrency-ga ahaa soo lacagteeba rabtaa waxa weeye inaad maalgashatid lacagteeba u baahan tahay inaad maalgashatid soo hadda matalan oo kale halkan Bitcoin baa meeshaan oo kale ku jira lacagta u baahan tahay adiga halkan ka bedelaysaa coinska waxa weeye u baahan tahay meeshaan baa search ka dhahaysaa matalan oo kale hadda waxaan rabaa inaan iibsado Dogecoin baan rabaa inaan iibsado halkaas waxa ku qoraysaa Doge kadibna Doge lacagta rabtid inaad ku gadatid oo kugu jira waxa weeye Binance-ga waa maxay matalan oo kale Binance-ga waan video ugu horeeyay baan ka soo hadlaa Doge-ga waxa weeye markii aad rabtid waxa weeye coins inaad maalgashatid waxa la sameeyaa USDT-gaaga lacagta lagu soo wada shubtaa qaabka deposit waxa weeye loo sameeyo USDT-na videogaas hore oo hadda ka dhaa description-kana waan soo dhigayaa marka halkan aad timaadid Doge meesha aad ku qodid lacagtii aad soo deposit garaystay haddii ay ahayd USDT Doge USDT waa inaad doorataa haddii laakiin lacagta kugu jira Binance-gaaga ay tahay Bitcoin meesha marka waa inaad doorataa Doge marka qodid waa inaad doorataa Doge Bitcoin waa inaad doorataa mar walba adiga lacagta asset-ka aad haysatid kugu jira baa u isticmaalaysaa inaad ku gadatid waxa weeye Dogecoin-ka ama cryptocurrency-da kale aad maalgashanaysid soo markaan oo kale waxaan haystaa matalan USDT ma haystaa kadib waxaan dooranayaa Doge USDT aan ku dhufanayaa kadibna waa u jeedaan waxa ii soo qormanaya shaxdii waxa ii soo baxaysa lacagta waxa weeye Dogecoin marka hadda xagee maraysaa meesha maraysa waxa kala socon karaa halkaana waa kala socon karaa meeshan oo waxa dhigi karaa waxay maraysaa 0.1458 halkaana waa kala socon karaa oo chartigan ama shaxdan baa soo dhaweynaysaa kadibna waa u jeedaa meesha marayso waxay maraysaa 0.14 halka meeshan guudkana waa kala socon karaa oo halkaana waxa weeye kala socon karaa laakiin waxa ku fuudo ishu qabanaysaa waa meeshan inta waxa weeye markii halka amraysid oo ay ku soo baxday waxa weeye Doge USDT ay ku soo baxday marka hadda waxa u baahan tahay waxa weeye coin kana iibsatid baa u baahan marka xagee ka iibsanaysaa hoos baa halkan meel geeska tagaysaa hoostaana u baxaysaa kadibna buy Doge meesha ay ku qoran tahay sell haddaad tirahdid waa iska iibinaysaa weeye laakiin buy haddaad tirahdid Doge baa iibsanaysaa soo waxa weeye markaad iibsanaysid waxa weeye cryptocurrency coin saddexdan qaab baa jira midka koowaad waa limit kan labaad waa market ka saddexaad waa stop limit oo maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin limitka markay tahay
limitka markay tahay waxa weeye tan waxa dhahayaa suuq waxa weeye markuu ay noqoto limit waxa dhahayaa midran oo kale markii halkaas oo kale lacagtan ay gaadho hadda meeshaas 0.14 bay maraysaa Soomaha lacagtu markii halkan timaado oo kale 0.2 alif oo kale markay timaado waxa dhahayaa suuqaas waxa weeye markaas macnaha buy garee oo halkaas suuqa ay gali meesha markii lacagta ay timaado halka ay gali ama ina waxa weeye aad isticmaashid waxa weeye market wax la yiraahdo badanana waxa la isticmaalaa market mid ugu fiican waxa weeye waa market waxa sameynaysaa market ka isticmaalaysaa markaas waxa weeye lacagta iibsanaysaa laakiin kuwan waxa weeye labadan kale waxa weeye lacagta meel ba ku sugaysaa stop limit ka waxa weeye order stop ba u dhiganaysaa markii lacagtu halka ay soo gaadho hadda meesha marayso meesha korkeeda waa aspara u sii dhiganaya amal kale weeye stop limit ba u sii dhiganaya lacagtu markay soo noqoto halka ay maraysaa suuqu waxa weeye horey ka sii gelinaya laakiin waxa soo waxa ka fiican inaad isdhibin oo waxa weeye market ka isticmaashid kadibna waxa weeye aad halkaas isla markiiba ka maalgelisid soo waxa weeye waxaan dhahayaa inta marka market markaan soo doorto kadib waxa weeye waxaan soo dooranayaa total meesha ay ku qoran tahay ama waxaan soo dooranayaa USDT ama meeshana waxa weeye amount iyo waxa jira total meesha ku qoran tahay totalku waa maxay amount waa maxay amount waxa weeye midran kale waxaan rabaa inaan iibsado kun doji inaan iibsadaan rabaa kun doji coin kun xabo kunka xabo markay kun meesha ay ku soo qormato waa halkan tigtaayada furaysa kadibna total baa meesha ku qoran tahay baad ku dhufanaysaa kadibna waxay noqonaysaa kun xabo saa u iibsatid waxa u baahan tahay $145 oo USDT ama US dollar u baahan tahay saad kun xabo doji u iibsatid laakiin maxaa kaaga fiican oo kale waxa kaaga fududba inaad totalkaaga u deysatid kadibna waxa weeye lacagtan aad tirtid oo kale aad tiraahdo midran oo kale $100 baa iibsanaya $100 oo waxa weeye doji coin ay iibsanaya soo $100 imsa xabay noqonaysaa $100 marka meesha ay gelisid amountiga totalki meesha ay ku qornayd baa ku dhufanaysaa kadibna amountiga dooranaysaa $100 waxay noqonaysaa $688 xabay noqonaysaa kadib maxaa dhahaysaa buy doji meesha ku qoran tahay waaba intaas waxa weeye dib badan inaad crypto coin iibsatid waxa saa u dib badan maaha sidoo kale marka sell gareynaysid waa tabtaas oo kale available imsa xaba haysta hadda available kayga aniga 405 xabo 405 xabo imsa xaba rabtaa inaad iska iibsid imsa xaba tan waxa dhaaya 100 xaba rabaa inaad iska iibsid 100 xabo markii aan ku dhufto meesha ay ku qoran tahay total waxay noqonaysaa $14 bay noqonaysaa haddaan rabo $14 imsa xabo doji noqonaya waxaan ku dhufanayaa meesha amount ay ku qoran tahay 100 doji noqonaya waa intaas waxa easy ah waxa weeye aan saa u dhibanayn weeye sidoo kale markii midran kale waxaan rabaa hadana inaan iibsado tusaale labaad baa inaan tusayaa kaba soo qaad waxaan iibsanayaa markaan lacagta la yiraahdo Solana waa mid ka mid ah lacagaha ugu fiican ee cryptocurrency-ga Solana markaan qoro waxa loo soo gaabiyaa Sol baa loo soo gaabiyaa Solana USDT kadib Solana shaxdeedii waa tan u jeedaan halkaas waxa way maraysaa ama halkaan ka fiirin ka dhameeshay maraysaa waxay maraysaa $112 bay maraysaa runtii waxa way lacagtan $75 bay asbuuciyadii dhaweeyta joogtay qofkii waxa way hadda maal gashaday wuxuu ka hayaa runtii faa'iido la taaban karo waxay ka soo laabatay $143 qofkii $75 ka maal gashaday $143 markay tagtay waa dareemka dhan faa'iido uu ka sameeyay lacagtan waxa way lacag mustaqbal ah mid kamid ah lacagaha cryptocurrency-ga ugu fiican oo la rajeynayo inay mustaqbalka waxa way meel fiican gaari doonaan soo waxa way ka faa'iideysan lacagaha cryptocurrency hadeer sanadka bilowgiisa waa marka ay mustaqbalka leeyihiin hadii hadda ay ku dhaafaan sanadka dhamaadkiisa waxa way inaad wax maal gelisid xogaa way iska yar adkaanaysaa ama lacagaha cryptocurrency-ga way qaaliyoobayaan inta markan kaga soo tago xagaan marka joogtid lacagta meesha maraysa waa u jeedaa waa 112 weeye hoos u soo degaysaa haddii mobile isticmaalaysid saan oo dhow ay ka fududahay wax iska dhib yar weeye waa adiga market-kaas aad dooranaysaa hore baad ka buy gareynaysaa laakiin ina halkan u soo dabacdid iyo waxaas ma baahnid laakiin waa isku mid laptop iyo mobile wax farqi hadda uma dhaxeeyaan kadib mar walba halkan spot-ka meeshaas market-ka ku doornaato and then amount-ga waxa weeye Solana imsa xaba iibsanaysaa Solana hal xaba hadaan geliyo halkii xabo Solana-da maxay u dhigantaa halkii xabo waxay u dhigantaa amount-ga ku dhufo kadibna waxa weeye total ku dhufo waxay u dhigantaa $112 bay noqonaysaa USDT ahaan hadaan iibsanayo amount-ga ku laabo mar labaad Solana hadda hal xaba iibsado Soomaa hadaan midran kale iibsanayo 5 xabo kale imsa noqonaysaa mar amount-ga soo fur kadibna waxa weeye totalka ay gali kadibna dollar ahaan waxay noqonaysaa $561 bay noqonaysaa si aad u iibsatid waxa weeye 5 xabo
haddii waxa weeye dollar ahaan au iibsanayso kaba soo qaad aad dhahaysid $50 baan gelinaya waxa weeye doji dadku waxa weeye isku awood maaha qaar baa intaasaan heli karin $50 kale haddaa iibsanaysid waxaa u baahan tahay konton markay soo baxdo inaad ku dhufatid meesha totalka kadibna amount aad tirahdid waxay noqonaysaa 0.44 oo Solana ah macnaha wax xabad barkeed camal oo kale bay kuu noqonaysaa saa u iibsatid waxaan rajaynayaa inaad si fiican u fahanteen wax saa u dhib badan maaha inaad crypto iibsatid sidoo kale waxaad ka iibsan kadhaaba adoona meeshaanba waxa weeye aan ka iibsanba waxaad dhihi kadhaa in aad coin walba waxa weeye aad ka maalgelisid sidoo kale lacagtaada kugu jirta bangiga oo kale inaad coin walba si gaar ah uga gadatid oo maxaa samaynaysaa meesha ay ku qoran tahay buy crypto baad ku dhufanaysaa kadibna waxa weeye debit iyo credit card baad ku dhufanaysaa kadib wuxuu ku leeyahay spendi amountiga aad waxa weeye gelinaysa kaba soo qaad waxaan iibsanayaa $100 oo doji ah meeshaasaa $100 gelinaysaa kadibna receive meeshay ku qoran tahay halkaan ku dhufanayaa bitcoin bay hadda ii tahay si fiican hadda u fiirsan meeshaas spendiga waxa weeye waa lacagta aan bangiga ka soo saarayo coinska aan ku iibsanayo waa maxay halkaan ay ku qoran tahay waa kan hadda bitcoin bay ii tahay waa ka bedelaya halkaan tigtaana soo furaya kadibna waxaan dhahayaa doji baan dhahayaa labadaba waa samayn karaa doji baan dhahayaa ama kaba soo qaad waxaan dhahayaa Solana kale kaba soo qaad lacagta la yiraahdo intaan ku ogoliyaa intaan coinskan u baad waxa weeye aad cryptocurrency waxa weeye ka iibin kartaa so adiga waxaa samaysaa USDT lacagtaada oo dhan soo gasho lacagtaada oo dhan waxa weeye USDT markaa soo gelisid kadib waxaa samaysaa markaas sida hadda aan kuu sheegay oo fududayd coin kasta waxa weeye sidiisa khaaska u iib ama lacagtaada ADA Cardano ka dhigo ama Bitcoin ka dhigo kaba soo qaad waxa weeye lacagtaydii Bitcoin baan iri oo waxa weeye buy baan soo sameeyay oo Bitcoin baan waxa weeye soo gashay مثلا $100 بيتكوين waxay noqonaysaa intaasay noqonaysaa halkan UGX bay ii tahay ka bedelo kadibna aan ka dhigo dollar USD dollar aan ka dhigo $100 oo USD ah $100 oo USD ah kadibna meesha bitcoin soo fur andan lacagtay baa rabtaa inaad iibsatid kaba soo qaad doji ma rabaa inaad iibsato dojiga waxa weeye ku dhufo markii waxba naga khaldamay halkaan waa la ogol yahay waxa weeye coin kasta inaad iibsatid soo waxa weeye $100 marka meesha gelisid kadibna waxa weeye receive waxa helaysaa $100 683 doji ah kadibna meesha continue ay ku qoran tahay waad ku dhufanaysaa meesha continue ay ku qoran tahay marka ku dhufatid wuxuu ku dhacayaa halkii doji wuxuu dhigmaa 0.15 USD kadibna waxa weeye bangiga meesha gelinaysaa bangiga isticmaashid ama add new card baa dhahaysaa kadibna waxa weeye kaarkaaga gelinaysaa meesha waxaa gelinaysaa kaarkaaga magaca kugu qoran kaar numberka waxa weeye numberka kaarkaaga dhexe kaga qoran expiry date xilligu dhacayo way ku qoran tahay iyo numberka kaarkaaga bangiga gadaal kaga qoran oo la yiraahdo CVV-ga anta next baa dhahaysaa kadibna waxa weeye lacagtaadii si toos ah waxay kugu noqonaysaa Dogecoin xagee baan kala soconaya marka lacagteeda inay noqoto Dogecoin ah helay meesha ay ku qoran tahay wallet baan tagayaa kadibna waxa weeye fiat and spot baan tagayaa kadibna waxaan soo fiirinayaa Dogecoin meeshii ma ii soo gashay maadaama $100 Dogecoin oo 683 baan iibsaday halkaan kala soconayaa hoos ma u soo degayaa kadib halkaan hoos ma u soo degayaa fiat and spot weeye hoos ma u soo baxayaa kadibna u jeedaan Dogecoin kadibna waxa weeye available-ka inta waxa weeye kugu jira waa halkaa kugu soo saarayaa soo waxaan filayaa inaad waxa weeye si fiican u fahanteen insha Allah hadii la yiraahdo waxaan ka soo diyaarin doonaa video qaabka waxa weeye cryptocurrency-da ugu fiican loo soo xusho shanta cryptocurrency coin ama ilaa 10ka ugu fiican insha Allah hadii la yiraahdo in la soo wadaagaya anigu aan baal gashaday waxaan filayaa inaad si fiican u fahanteen marka iibsanaysid waxa u baahan tahay cryptocurrency ina waxa weeye trade-ka aad timaadid kadibna spot-ka aad tagtid spot-ka waxa weeye meesha xalaasha weeye kuwa waxa jira xaaraan kuwa xaaraanta waa inaad iska ilaalisaa cryptocurrency-gana inta badan xaaraantana in la soo wadaagi doona insha Allah hadii la yiraahdo kadib meesha marka timaadid coin-ka rabtidoo kale ina waxa weeye meesha ka iibsatid inta loo kala Dogecoin marka iibsanaysid Doge meesha ay gelisid kadibna waxa weeye USDT hadda haysatid USDT aad dooratid adiga waxay ku xiran tahay wallet-kaaga waxa kugu jira USDT hadda kugu jira USDT gaas aad dooratid kadibna waxa weeye hoos u soo baxdid andan waxa weeye aad samaysid meesha hadday limit ku tahay oo kale market-ka ka dhigatid
and then halkaasna aad gelisid amountiga iibsanaysid matalan waxaa iibsanayaa amountiga ku dhufo totalka geli kadibna waxa weeye $100 oo kale waxay inta meesha gelinaysid $100 waxay ku noqonaysaa amountiga ku laabo total ku laabo ama amountiga waxa weeye mar labaad ku laabo waxay noqonaysaa $680 Burundi ah halka waa ka iibsan kartaa waan ku yiri ama maxaa samayn kartaa si fiican inay fahanteen ma rajaynaya ama buy crypto ku dhufanaysaa dan debit iyo credit card baa dhahaysaa kadibna waxaa samaynaysaa buy baa ku qoran meeshaan USD iyo Bitcoin ka rabti waxa weeye mar walba inaad waxa weeye aad iibsatid matalan $100 oo kale baan akoonkayga bangiga ka soo saaraya waxaan ku iibsanayaa Bitcoin waxay noqonaysaa 0.202324 way ku noqonaysaa oo Bitcoin ah marka waxaan rabaa inaan iibsado kale coin-ka la yiraahdo kaba soo qaado kale Ethereum baan rabaa inaan iibsado $100 waxa weeye $100 Ethereum wuxuu noqonayaa 0.031 buu noqonayaa and then continue dhahaya labada qaab waa loo iibsadaa labada qaab waa u iibsan karaa inaad bangigaaga toos waxa weeye aad mid u iibsatid ama inaad lacagtaada marka hore aad ka soo wada dhigatid USDT kadibna coin-ka aad waxa weeye si gaar ah aad ugu iibsatid oo aad meeshii hadda in tusay trade-ka aad tagtid kadibna waxa weeye saas aad gaar ugu iibsid ama inaad coin walba waxa weeye asaa u iibsado bangigaaga aad ka iibsatid soo hadda waxa weeye $100 waxaa helaysaa intaas oo waxa weeye Ethereum kadibna aad new card baa dhahaysaa laakiin haddii hal marba aad kaarkaaga aad gelisid mar walba waxa weeye meeshaan kugu save garaysan oo kugu soo qabanaya soo kugu save garaysan marka waxaan filayaa inaad si fiican u fahanteen insha Allah hadii la yiraahdo waxaan ka soo hadli doonaa qaabka cryptocurrency-da waxa ugu fiican loo xusho ama waxa weeye kuwa ugu macquulsan 5 ama 10 cryptocurrency coin oo dhig kara maanta ugu fiican yihiin waan ka soo hadli doonaa insha Allah hadii la yiraahdo sidoo kale waxaan ka soo hadli doonaa cryptocurrency-da waxa weeye xalaasha oo aad u baahan tahay inaad iska ilaalisid aad iyo aad baan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh